shirkan maalgelinta ganacsiga Somaliland oo ay martigelisay wadanka Germany ayaa waxa ka soo qayb galay xubno kamid ah golaha wasiirada Somaliland gudoomiyaha xisbiga oo Injineer Faysal Al-Warabi xogayaha warfaafinta xisbiga mucaaradka wadani iyo ganacsato ka kala socda Somaliland iyo Germany wasiirka wasaaradda ganacsiga Somaliland Dr. Umar Shacayb iyo wasiirka wasaaradda amuraha dibadda Somaliland Dr. Sacal Al-Shiri oo iyagu warbaahinta kula hadlay gudaha shirka oo ka dhacay magaalada Berlin ee wadanka Germany ayaa waxay si qoto dheer uga warramay ahamiyadda uu shirkani leeyahay iyagoo cod dheer ku sheegay inuu shirkani qiimo ballaaran ugu fadhiyo Somaliland waxaanu ammaan ballaaran u soo jeediyeen shirkadaha ka socda wadanka Jarmalka oo iyagu halkaasi ku soo bandhigay sida ay maalgashi ugu sameeysan lahaayeen Somaliland waxa kale oo ganacsatada ka socda Somaliland iyaguna soo bandhigeen fursadaha ka banaan Somaliland ee dhinaca ganacsiga iyo maalgelinta shirkan ayaa noqonaya shirkii ugu horeeyay ee lagu qabto wadanka Jarmalka iyadoo muddooyinka ugu dambeeyay wadanka Jarmalku uu xiriir wanaagsan oo dhinaca ganacsiga uu doonayo in la sameeyo wadamo ku yaala qaaradda Afrika ilaahay ayaa mahad leh runtii inoo soo gabagabeeyay shirkii aynu ka soo qayb galnay ahaa carwo ay nagu maamuseen amba aynu wada sameynay African Fairen amba Association macni kambaniyada Afrika Jarmalka ee Afrika ka shaqeeya iyo kambaniyada Somaliland runtii waxa maalin aad u qiimo badan oo ay kambaniyada muujiyeen runtii jaanisada amba fursadahu ay hayaan shaqo isla markaana runtii xukuumad ahaan ku soo bandhignay opportunity-ga shaqo ee wadanka yaala iyo fursadaha maalgashi ee wadankeena runtii ka banaan waxa runtii mahad aad u qiimo leh dhalinyartii halkan lagu soo dhaweysay ee ugu horeeyay Cabdifataax oo ah gudoomiyaha jaaliyadda oo runtii aan hadiyayeen isaguna seexan oo halkan ma garanaysaa inoo sii qabtay reservationadii waxaan sameysanaynay iyo runtii jaaliyadda Germany halkan joogta idana aad iyo aad baan runtii ugu mahadnaqayaa waxaan kale oo doonayaa aad ugu mahadnaqo runtii kambaniyadeen oo wax qiimo la soo bandhigay oo adduunyadii tusay say jaanisada macnii ambaan idhaahdo private sector-iska awoodda uu ku leeyahay Somaliland taasoo runtii siinaysay fikir aad u qurux badan ama muujinaysay fikir aad runtii u wanaagsan dadka maxay tahay ajnabiga ujeedada wuxuu ahaa inaynu ma garanaysaa ku soo bandhigno runtii Somaliland inuu yahay wadan xor oo la maalgashan karo ay fududahay ma garanaysaa in kambaniyada ajnabiga iman karaan ay maalgashan karaan ka qayb qaadan karaan maxay tahay horumarka dalka amba ma garanaysaa diplomatka waxaana runtii wasaaradda ganacsi ahaan noo yaala waxa weeyaan inaan u fududeyno amba aan ku soo dhaweyno dhammaan wixii shuruuc ah ee u fududeynaya ambaba ma garanaysaa u hirgelinaya inay kambaniyada ajnabiga iska register gareeyaan amba ay yimaadaan wadankeena runtii waxaa fursad aad iyo aad u qiimo badan bay ahayd waanan aad iyo aad runtii ugu mahad celinayaa cid kasta oo soo qabanqaabisaanba ka soo qayb gashay arrinta kale iyadana aanu halkan doonayna inaynu ka rees karayna waxa weeye saa la socotaan wadanka abaaraha ka jira runtii abaaraha ka jira kolley qurba joogtii iyo dhalinyartii halkan way joogaan iyadana waa mid aan doonayna inaynu runtii la kulanno dadkii qurba joogtahaa amba baan idhaahdaa jaaliyadihii wadanka si ay wadankii wax ugu soo celiyaan oo ay uga qayb qaataan horumarka waxaa runtii noo ahayd sharaf iyo farxad iyo maamuus inaannu ka soo qayb gallo munaasabaddan maanta halkan ka dhacday magaaladan Berlin ee wadanka Jarmalka oo ay soo qabanqaabiyeen xidhiidhka ganacsatada Jarmalka iyo Afrika hay'adda la yidhaahdo ujeeddaduna ahayd in laysu keeno ganacsatadeenna iyo ganacsatada iyo maalgashadayaasha wadanka Jarmalka ujeeddadaas waxaan filayaa in si fiican maanta ay noogu fushay noogu hirgashay halkan maanta waxaa isugu yimi ilaa 80 qof baa isugu yimi waxaa ka soo qayb galay dhowr iyo 20 shirkadood oo reer Somaliland ka socda iyo 26 shirkadood oo ka socda wadanka Jarmalka
wax badan baa la kala kororsaday waxaan rajaynayaa xidhiir badan inuu ka dhalan doono insha Allah bidnillaahi kariim waxaan soo jeedin lahaa runtii in la sameeyo diiwaan amba directory ka soo qaybgalayaashii oo dibadna la wareejiyo cid walba loo diro سعيدي نقول حريد هالك ما تقنا وقول حريد كرته حنشعلك إنه جم هاد عليو أنتي سوق بنقابسي أنتي كسوق يبقى شيبة جارهان هيدن محل هذا حريد كجناسي كأفريقيا يو أفريكان فيراين يو جناسي تدينا سيدا ونكسن روح لبنا لو كسوق يبقى لي ونصوب بندقي حوله هودي حنشعلك إنه جم هاد عليو waxaan kaloo uga mahad celinayaa dhallinyarada reer Somaliland ka tirsan jaaliyadda Jarmalka oo iyaguna si wanaagsan noogu soo dhaweeyay halkan kana soo qayb galay bahda saxaafadda laftigooda runtii waxaan uga mahad celiyo sidoo wasiirku sheegay waxa ka jirta wadankeena abaar xun baa ka jirta maanta oo u baahan inaynu u gurmano haddaynu nahay reer Somaliland inta gudaha joogta iyo inta dibadda joogtaba gaarsiinana dadka iyo deegaanada aynu la degannahay dibadda si arrinka ma taqaanaa si degdega gurmad looga galo waayo runtii waa abaar aad iyo aad u xun haddii aan si degdega wax looga qabanna laga yaabo inay keento dhibaato badan iyo dhimashaba waxaan ku soo gabagabeynayaa mar labaad anigoo mahad celinaya intii ka soo qayb gashay iyo intii soo qaban qaabisayba waa mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu inkastoo gabagabadii la aqbali karo qaabka shirku u dhacay haddana waxoogaa turanturooyinoo kacakro waa ku soo dhacay dhammaantoodna salka ku hayay fiisayaashii sidii loo heli lahaa waad ogsoontood dalka Jarmalku safaarad kuma laha Somaliland Somaliland lama aqoonsano baasaboorka Somaliland laguma bixi karo ganacsatada Somalilandna baasaboorka kala gaar ay sitaan arrintaas waxay keentay runtii safaaradihii dalalkii ugu dhawaa Jarmalku ku lahaa fahamsiintooda sidii ay ganacsatada Somaliland u sii lahaayeen fiiso mar walba fiisa processkii oo taagan ayaa timekii shirka la qabtay uu imanayay uu dib u dhacayay dabadeedna taasaa keenaysay in haddana waqti kale la qabto nasi wanaag markii dambe waxaa runtii wasaaradda arrimaha dibadda Somaliland ay ku invite garaysay dalka ku-xigeenka safiirka Jarmalka ee dalka Kenya markii ay timi runtii gabadh bay ahayd si wanaagsan ay u fahantay mushkiladii iyo caqabadii hor taagnayd shirka aadna waa u dareynayay Jarmalku inay halkan shir maalgashiga sidii Somaliland loo maalgashin lahaa iyo fursadaha maalgashiga Somaliland ka jira maxay yihiin inay dadkooda ay ogeysiiyaan oo kaligeena guud ahaan baad mooday marka inay ku jahaysan inay dalalka Afrika wax badan ay ka ogaadaan oo ay ku jahayaan dadkooda inay maalgashadaan sida wadeed adoo markii dambe runtii waxyaabihii carqaladihii keenayay inuu dib u dhaco way xalismeen waana fududeeyeen saddexdii safaaradood ay khuseynaysayna muxuu ahaa waa lala hadlay dabeedna si fudud ayaa loo helay marka arrinta ugu weyn runtii arrintaas ay ahayd duuligiisa annagu halkan waxaan u joognay mawjadadan xaqiijinay ganacsatada iyo xukuumadda Soomaaliya ku wada socda wax weeyaan inaan iibino fursadaha ama badeecad Soomaaliland ay leedahay oo u baahan marketing iyo suuqayn ama haato fursado maalgashi Soomaaliland ka jiraan u baahanahay investors iyo maalgashadayaal u baahanahay labada ujeedo ayaan doonaynaa halkan aanu ka xaqiijino kuna qancino muxuu ahaa maalgashadayaasha Jarmalka iyo cidii shirka ka soo qayb galaysa shirkadaha طبعا dawladda qofka ganacsiga had iyo jeer dawladdu de si guud bay u xilmaantaa laakiin mesela for example imaka shirkadihii prestige ka jeedinayeen qofka maalgashada halka Jarmal jooga wuxuu ka dhax akhriyaa markuu qofku company-giisa iyo history-giisa iyo golosha iyo guushu gaaray uu ka waramo waxay qancinaysa soo dhaweynaysa ku qanciisa inuu yimaado dalka had iyo jeerna waa laga maarmaa qofka maalgashadii markuu dalka la tagayo inuu helo partner xogogaala oo local oo wax la qabsado sida awadeed baan ugu dadaalay in muxuu ahaa sector kasta oo dalka ka jira cid matasha in la helo
inkastoo meelo muhiima dad loogu talagalay ay runtii habsaameen ama u suurtagal wadeen fiisihii ay helaan. magacayga waxaa la yidhaha ubax maxamed ducaale waxaan ahay ownarka deegaan company oo ka socda Somaliland Hargeysa. deegaan wuxuu fuliyaa serviceyo badan oo ay hoteelada iyo ay ka mid yihiin training ay hablaha siiyaan lacag yar oo microfinance ay dumarka suuqa fadhiista siiyaan. deegaan maanta wuxuu ka soo qayb galay shir lagu qabanayo Berlin oo ay nagu casumeen qolo ay African la yiraahdo African Feronan oo kuwaasoo in badan aan wada shaqaynaynay oo noo hambalyeynayno. dhammaan waxaan maanta ku faraxsanahay inaan matalo dumarka Somaliland ee businesska ah ee uga soo qayb galay shirkan. anoo ku faraxsan inaan dad badan oo wajiyadooda cusub yihiin aanu halkan isku baranno kambaniyo investment ah dad kale oo Soomaaliya oo ugu horeeyo Haldoor Media and News oo aan u mahadcelinayo. wa salaamantiin. Assalaamu calaykum waraxmatullah. shirkan runtii si fiican baan aragti fiican baan u arkaa waxaana ay Soomaaliland ka faa'iideysaa dhinaca siyaasadeed iyo dhinaca dhaqaalaha way ka faa'iideysaa. dhinaca siyaasadda markay ugu liidato waxa weeye horta marka hore warqadda la inagu soo casuumay Somaliland German Day baa ku qoran magaca Somaliland si kale buu ugu qoran Somaliland German marka waxa weeye waxa way ictiraaf dadban iyadoo oran kartaa. marka labaad waxa weeye meedihii ay gelaysaa shirku gelayaa muddada shirku socdaa ama muddada laga hadlaayo magaca Somaliland dad badan oo aan hore u maqalba maqlaya oo ay dhugooda ku soo dhacaysaa. marka dhinaca siyaasiyan faa'iidooyin buu halka ka leeyahay. dhinaca dhaqaalana waxa weeyaan dad inay wax kala faa'iidno ay doonayaan ama sunnimi dal weyn oo dalalka adduunka ugu dhaqaalaha badan la kamid ah weyn ayaa shirka inoo qabtay. marka mustaqbalka waxaan rajaynaynaa inuu midho dalkeeno insha Allah taala. shirkani wuxuu ahaa shir aad iyo aad u qiimo badan qaran ahaan Jamhuuriyadda Soomaaliland qiimo weyn aad iyo aad u weyn oo miisaan leh waxa weeye ku mataqaanaa leh ganacsato ahaan ka businessman ahaan waxa weeye chance fiican oo aanu ku mid gareyn karnaa ama aanu kula kulmi karan dhigayaga mataqaanaa ganacsatada waddanka weyn ee Germany ay horta noo hayd. marka waxa weeye sida loo soo qabanqaabiyay ka dawladda Soomaaliland ahaan iyo ka shirkadan waxa weeye Jarmalka u qaabilsan mataqaanaa waxa weeye business kalaado waxa Africa Fine si aad iyo aad u qurux badan bay u soo qabanqaabiyeen waana shir heer caalami ah. shirkan maanta halkan ka dhacay Berlin ka dhacay si wanaagsan oo aad iyo aad u qiimo leh oo habaysan ayuu u dhacay. sharaa'iga ka soo qayb galay Somalilanderka iyo kuwii ajnabiga ahaba si fiican baan la soo afkartay. waxaan berrito kolley shir baanu saa dambe ku qabanaynaa Frankfurt. marka waxaanu leenahay qurba joogga meel kastoo ay joogaanba qurba joogga arrintaa degdega ah ee wasiirkuna sheegay ee abaaraha waxaanu jecelnahay inay ka soo qayb galaan oo dadkooda iyo dalkooda sidii ay awalba ay ugu naxariisan jireen ee waqtiyada adag ay uga qayb geli jireen inay ka soo qayb galaan oo ay aad iyo aad arrintaa culays ay u saaraan qurba jooggu gaar ahaan dalkan aanu joogna ee Germany waxaanu jecelahay inay awshaa ay firiyaan. And also to mention that we became the 5th in the world to implement the financial service and MMT mobile money service. And at least one thing we are ahead of Germany in this regard. And many other places. Yeah, that is true. Yes, so I was discussing one of the German companies here, and they said we really don't have this financial service, and it's quite impressive that you have such thing. And most of our people here, they're addicted to the mobile money transfer, the ZAD application. Even yesterday we went to a cafeteria buying something, and I immediately started looking at my mobile phone because I want to do a payment, but I remember that I'm in Germany. Forgot where you were. But even the services,
internet and so on. In Somaliland, I was very impressed. It was very, very fast compared to German. Thank you. So that's good witness. And if you look at the market share, this is how we read actually. So the Somaliland adult population that can actually use a mobile phone, we have 25% of them as Telesom mobile subscribers, and 40% of that we have as Z subscribers, and 67% are active subscribers. So in telecommunication, this has really a lot of meaning to get it like having 67% of active Z service means that almost a third of the population in the country are using their money with the mobile. How much? 67%.